عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو محمد أحمد عنتوبو قدوميها دقمة هودن. رن صد walaalkay sheegay waxaan ka shaqeynaa daraasaynta oo xaafadaha la wareegayo dadku waxay ka caawinayaan tuugada dad oo lafaan canshuur iska qaadanay oo dawladda ka warhaynino guryaha xaafadaha oo iska qaadanay canshuur oo been oo maalinkaas $1 soo tuuro $1 soo tuuro iska qaadanay way ka caawinayaan amniga dhalinyarada iyo dariseenta laga sheegay badana iyo dad ka cabanaya niman ka qaata lacagta sidii canshuur inay qaadayaan oo kale ama muxuu ahaa lacag baada dadka inta ka qaataan darees ciidan oo kale wata ama iska dhiga mararka qaar minishibiya ama ha noqoto niman minishibiya oo dhibaya dadka markasta haddana waxaan ku soo celcelinayaa degmadan aniga markaa imid muddo 2 bilood 3 bilood intaan joognay dad badanaa ka cawday muxuu ahaa niman minishibiya oo inta yimaadaan hadday rabaan inay guriga cadaystaan ama muxuu ahaa hadday rabaan inay gurigooda dayactirtaan hadday rabaan mar walba lacag ka qaado waa degmadii ugu horeysay oo xabsiga dhigtay 3 ciidanka ilaalada deegaanka kamida oo minishibiya waa la xisaabtamay shaqooyinkoodina waa ku waayeen ciidan cusub ah degmada jooda haddii akhlaaqdooda iyo aqoontooda iyo habla dhaqankooda ay ka heli weysaan sidaas oo kale la rabaa in la soo raboorto gareeyo ciidan u joojinayno male mar walba anaga waxaa mas'uuliyad naga saaran tahay dadka deegaankan waxaan rabnaa cid walba ka xad gudbaysan inaan la xisaabtano sida horey u dhacday waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliyaha markii dhalinyarada la siiyo madal ama platform ay ku hadlaan markaas aad dareemi kartaa inay wax ku leeyihiin degmada iyo maamulka waxaa la isdhaafsaday fikrado talooyin su'aalo ay qabeen iyagoo aan la gamban ayay noo soo jeediyeen ammaan iyo dhaliil labadaba waa noo soo jeediyeen waana ku faraxsanahay maamul ahaan waa waxa halkan aan u joogno waxaan dareemayaa insha Allah haddii kulamada noocaan oo kale la badiyo in bulshada oo dhan ay muxuu ahaa godadkii ay ku jirtay ka soo kala bixi doonaan insha Allah